ayaa idinku mahadnaqayaa reer Kalkayood soo dhaweynta qiimaha badan aad soo dhaweyseen dumar madax dhalinyaro culamaaddin oday dhaqameed dhammaantiin inaad soo dhaweysaan yaad iyadoo weliba ciidu ayaad u kulushahay aad ii dulqaadataan aad iyo aad ayay qalbiga u taabanaysaa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay hadda halkan hal sano ka hor bishii Oktoobar sanadkii la soo dhaafay ayaan idinkugu imid markaas iyada aad iyo aad baad ii soo dhaweyseen haddana soo dhaweyntaas mid ka sii wanaagsan ayaad maantana soo dhaweyseen oo aad uga ballaaran maalintaas waan idinka tegey soo dhaweyntaan qiimaha waxaan u qaadanayaa marka inay tahay nala joog waa naga tegey waan aqbalay waan joogayaa waan wada shaqaynaa isbeddelka ay Puntland u baahan tahay ayaa dhammaanteen ka wada shaqayn doonaa insha allahu isbeddelkaas wuu imaan doonaa wuxuu ku imaan doonaa si nabadgelyo ah wuxuu ku imaan doonaa si xor ah isbeddelkaasi mid bulsho mid dhaqaale mid nabadgelyo intaba waan u baahannahay barnaba inaynu ku hayo ciridda khudbadahayga iyo xog waraysiga fadhi mugga ayaan isku waraysan doonaa uga wada hadli doonaa waxaan rajaynayaa guul waxaan rajaynayaa horumar waxaan rajaynayaa cadaalad waxaan rajaynayaa sinaan Puntland ha noolaato Soomaaliya ha noolaato aad iyo aad u mahadsantihiin